أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رير أهل الذكر أصحابتي إذا قالي أهدمان inta pageka youtubeka ku xiran oo dhan waxaan idin leeyahay nabadgelyada naxariista ilaa dushiina ha ahaato. allah idin barakeeyo, allaha idin guuleeyo meel kastoo adduunka uga nooshiin. allah idinku xifdiyo nafta iyo maalka iyo awlaada iyo diinta intaba allah idin xifdiyo. jimco wanaagsan dhammaanteenba allah noo xifdiyo, allahna barakeeyo. oo barnaamijkeeni axlaa qisas sida ay ugu xiisteen horta idinkugu xiisay aad iyo aadna waxaan leeyahay waxaan uga hambalyeena walaalaha isoo raadiyeen meel walba, xataa qoraalo youtubeka iga soo qoraayeen in badan. waa idin nabad qaba, waan idin fiicanahay maasha allah tabaaraka raxmaan. allahuma laka alxamdu walaka shukru. insha allah qisada noo soo daya. qisadeena maanta waxay qusaysaa xawqala abaaye iyo fawaa'idka ay ka hesha ahli dikri. faa'iidada special xawqalada miin kaga sheekeynaya muddo badan ka soo hadlay xawqalada maasha allah tabaaraka raxmaan. waxay tiri abaayo waxaan ahay qof xanuunsan, aad u xanuunsan, heer ee gurigeeda ayada oo lagu guursaday ee ka cararto oo maaragtay ee dhibaato la kulanto. waxay dhahday gurigii waan ka tegay, anigii xaajigayga magaalo kalaan degnay, xaalkii sida aan ahay haddana waan xanuunsanahay oo meel la iga haayay ma aqaan, aniga dhanaa xanuunsan. waxay tiri abaayo waxaan bilaabay xawqalada iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. fawaa'idka maanta wuxuu quseeyaa xawqala iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay dhahdaa abaayo filsan maalintii ugu horreysay waxaan aqriyay 300 oo xawqala ah. yaqiina loo baahan yahay axbaabi maasha allah tabaaraka raxmaan. fawaa'idka qeyrka iyo qur'aanka wuxuu u baahan yahay yaqiin. markaa ilaahay aad ka sugtid wax adiga aad hubtid waad helaysaa, because ilaahay ballanqaadkiisa been maahan. qeyrkii nimcaadka markaa aad aqrinaysid yaqiin la imaaw, taasna waa idin horumarinaya. alaa bidikrillahi tadmainu alquluub. gabadhan abaaye waxay tiri 300 oo xawqala akhrista si yaqiin ah. wallaahi ay dhahday subaxii maxaan dareemay nafis, farxad, qalbigayga dhanba farxada kusoo dhacayso. waa dhadhamiyey tiri xawqalada macaankeeda ilaahay siiyey ugu israaqay. maalinta ku xigta 500 oo xawqala aqriyay tiri sidoo kale maasha allah kaba daran inaan maalmo dhan iska faraxsanaadaan keenay tiri. qalbiga dhan ii dago oo maaragtay aan aniga dhanba aan noqdo in qof farxad haysato. xanuunkii jirka dhan iga haay wuu baxay, meel qaasa leega haaya hadda markaan. maxay darantay shalow isku qasqasneed meel wax aad u raacata xanuunka meel qaasa laga haaya dhakab. waxay tiri waxaa igu soo dhacday inaan baxo oon aado magaaladii. macnaha faham, magaalada dhan gabadha kasoo gurtay, maxaa la dhahay gurigeedii kasoo tagtay. xaajigii waxay ku tiri xaafadda walaashay aadaa, magaaladii u laabanaya aan kasoo tegay. wadaadkeedu wuxuu yidhi haye waxaa igu soo dhacay tiri qalbigii kusoo dhacday inaan magaaladii u laabtabo. ma magaaladii kasoo tagtay oo gurigeeda ku yiili guri ayga ay leeyihiin. gabadha abbaay waxay tiri guri walaashay intay xawqalada way wadaa moogtaa 500 akhrisaa maalin kasta. markaan waxay tiri salaatuleelan u kacaa, salaatuleelka markaa u kaco 1,000 oo xawqala akhrista. habeenkii ugu horreeyay ee 1,000 xawqala akhristay horta waxay tiri fay aan ah step gabadhii farxad yaray dareenta. gabadhii murugta iyo xarqisa iyo tiiraanyada oo qasneed oo rafaadsaneed meel laga meel kale aqoon farxaday kuu soo heshay. marka xigta oo dani gabadhi ay badisay xawqaladii badisay maalinta ku xigta waa badiyay tiri 500 markay ka dhigtay gabadhi waxaa ku soo dhacday magaaladii ka timid iyo magaaladii ay ka soo carartay aaba ku soo dhacday qalbigeeda ku soo dhacaba. guriga walaasheeda aaday 1,000 markay ka dhigtay habeenkii saq dhexe ay aqrisay salaatul leelka. subaxii maxay go'aansataba inay gurigeeda soo booqato. abaayo waxay tiri gurigeyga ugu soo dhacay in aan maaragtay soo booqdo.
soo baxay dhahday sidan u sii socday gurigaan tagay tir maya yani idinka hor dhicin maalintaas waxaa ugu soo dhacay tiri inaan gurigayga soo booqdo habeenkii ku xigay 2,000 oo waxay tiri waxaan akhristay oo xawqala ah 2,000 oo xawqala akhristay waaga markuu baryana toos waxaa aado gurigiiba goob igu soo dhacay inaan aado gurigayga maalinta kow waxay ahayd tirkunka marka akhristay guriga qalbigayga soo galgalay qalbiga guriga soo galay gurigay ma soo booqatid habeenkii kale laakiin markaan salaatuleelku u kacay oo aan 2,000 oo xawqala akhristay waaga markuu ii baryaba toos waxaa aaday tiri guriga inaan bas soo booqdo oon tago guriga cagta dhigo waxay tiri abaayo guriga markaan tago waa xanuunsan jiray waa dhici jiray tacbaan aan noqon jiray guriga haddaan isku maago israado waxa maxaa ka qaldan gurigaaga waa ku xanuunsan jiray tir xanuun ma dareemin waxba ma dareemin meeshii oo xanuunku iskugu yimid jirka intuu ka baxay meeshii laga hayn way ka fiicnaataba abaayo markay ku bilowdeen salaatuleelka ku bilowdo ku akhrisato abaayo filsan waxay tiri markaas maxaan akhrisi jiray suuratul baqara ma aqoonin laakiin suuratul baqara iyo qisooyinkeedii adduunkeedu way soo socdaa iyo dhibaatadii kabadhan ku dhacday wixii oo dhan waa soo socdaan insha allahu tacaala bidnillahi kariiman walaasheen allah u zaa'idi aan leenahay laakiin xaaladaas markaas ayada ah suuratul baqara ma aqoonin waxay tiri abaayo step kaas aan akhristay kuwa marka ugu horeyso 300 akhristo farxad dareemay marka ku xigto oo 500 aan akhristay oo aad iyo aad aan farxad u dareemay oo ugu soo dhacday inaan magaalada u laabto marka ku xigtay oon guriga walaashay tagayn oon salaatuleelku ku bilaabay inaan ku akhristay xawqalada 2,000 oo 1,000 xawqaladana gurigayga ugu soo dhacay tir markaan 2,000 oo xawqala ka dhigo macaantii aan dareemay iyo jaceylka xawqaladana waxaan oon 2,000 ka dhigay waxaan tagay tir gurigayga aan soo booqdo waxaanuna ma arkin waana ka fiicnaaday jirkeyga xanuunka ku jira waa too dhinac iga wada galay tir hal dhinac meel ay xanuuntay xanuunkiina waa iga tagay tir waxaan marka akhrisan jiray tiri markaas ayada ah xawqaladaas oo 2,000 ah iyo 2,000 oo ah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam muddana waan ka soo hadla haddana waan ka hadli doonaa rabbigay hadduu qadaro stresska qof duu ku hayo murugaato tan badisay oo isku buuqsan tahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badi insha allah barakaat iyo khayraad iyo nimcaad iyo waxba ha u doonan daawo oo maskaxiyan ee qof dhakhtar ha u doonan saliga nabiga calayhi salaatu akhri hadaa lagu haayo maskaxiyan way fiican tahay dhakhtarka inaad tagtid oo daawo soo qaato oo hogla talinaya ma ku dhahay dhakhtar ha aadin ishag ka joog laakiin waa wallaahi billaahi dadka aad u badan maxay ii soo sheegeen in oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam stress badan oo ka bi'iyey dad badan oo isku buuqsanay oo ka bi'iyey imtixaanaadka dadka galaan ee maaragtay ii sheeg maasha allah tabaaraka raxmaan oo aad markay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badsadaan ee maaragtay maasha allah imtixaanka ku guuleystaan marka qofkii maskaxiyan buu xanuunsan daawadaadan qaado waa important ayadana macnaha waa wax la iskaga baahan yahay daawada in la iska qaato laakiin yaqiin la imaawo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badso maasha allah tabaaraka raxmaan halkaas istadanaan jecelaystay inaan idinkala wadaago walaalahayga qaaliga ahoo saa idin jeclahay ilaaha og allah idin jeclaado saa ii jeceshin ka darna idin jeclahay midda kaleetoodna waxaa waaye qof hooye oo iska biisi badanaan ahay haddaan qiso idin soo dhigi waa ha iga xumaaninin insha allah filsan waa idin nabad qabtaa ilaahay subxaana watacaala boqorkaa wixii shar allah naga qabto wixii shaydaan allah naga qabto waxba dhib ma qabo aniga aad iyo aad idinkugu fiicanahay ha iga welwelinina ilaahay subxaana watacaala boqorkaa ha idin barakeey haddaa xataa i weysiin macnaa qeybka inoogu soo duceey qof kasta wuu dhimanayo kullu nafsan daa'iqatulmawt waa idaa jaa ajaluhaa waa inu kastaba maalintiisuu tegaya laakiin ha isdhihinin abaa waa ku weyn maxaa kugu dhacay dad badana iisoo qor waxa isdheedheen gabadha maxaa ku dhacay makaroonihiyaa ku dhacay waaba mise maba noolaas dhani dhisacaan saa laakiin wax kasta way dhici karaan ilaahay subxaana watacaala boqorkaa wixii shar ah allah naga qabto gabadha walaashay ah hodan online ilaahay subxaana watacaala boqorka ahay waxaan u weydiinaa qalbigeena u qaboojiyo qolka oo gabdhaha gruupka oo ahlo dikriga waa looga soo duceeyey ducaan u weydiinay ilaahay subxaana watacaala boqorka ahay in uu maaragtay qalbiga u qaboojiyo agoontaasna la koriyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa rabbiga boqorkaa weydiisanaynaa inuu ilaahay awlaada la korsho soojkeedana u naxariisto sakraadka waa dhaafay su-aasha aakhir ilaahay ku dhibin cadaab qabrina allah ka najeeyo kheyri baraka walaalahayga qaaliga aho salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu